Bismillahirrahmanirrahim. Dhageystayaal waxaynu ku bilaabaynaa qaybtii koobaad ee buugga guurka raaxada oo aan liiqadan dhigi doono insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. buuggan waxa xuquuqdiisa iska leh ama daabacay oo qoray Sabriye Macalin Muuse waxaana tifaftiray Sheekh Mahadiiriye Axmed waxaan xuquuqda buugga iska leh qoraaga buugga. haddaba ugu horeyn waxaanu ka hadlaynaa gogoldhigga guurka إن شاء الله هدي إلهي يرهده جورك يا موقف كديلته إسلامك جورك ديلته وأجرجار شيدان كلا وقبل اليهود ولا جاشال أدق وعدو بلغ جلو وحنا كبته ومدة إسلامك سأي أولا ترتبان ومضها كله بوحة وآياته سقرآنك كل هي uguuriya xaaslaawayaasha idinka midka ah iyo adoomadiina kuwooda wanaagsan rag iyo dumarba hadday sabool yihiin eeba asaga deeqdiisa ku hodminaya eebana waa kii deeqdiisa dadka ku wada aado cid walbana duruufteeda ka warqaba. rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waxaa laga wariyay inuu yidhi isguursada oo tarma ummadaha ayaan idinkugu faanaya maalinta qiyaamaha ah. ابن مسعود رضي الله عنه وحا أورنجري هدي عمريغا تمنبري أو كليا كهرسلتهاي وحا الجعلان لها إنا نقورسدو سي آنان إيبي وغهر تقل أليغو دوبا. صحابيغا معاذ بن جبل رضي الله عنه داعوب باماني كدعي لبحاس أو قبيلة كدلي مركاسو يري وري قوريا بجعلي إلى الإيبي لكلوا aloo doobahe qofkaan haddaba guursan karin sabab kasta ha kaliftee waxaa habboon inuu is-ilaaliyo inta faraj kheyr qaba uu uga furmayo eeba waxa uu kaloo aayadihiisa qur-aanka ku leeyahay hadhowrsadaan kuwaan awood guur u heli karaynin inta uu alla deeqdiisa kaga hodminayo. ibnu mascuud radiallahu canhu waxa uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam ka wariyay inuu yidhi ninkii awoodi kara ha guursado maxaa yeelay guurku aragga waa u dabool ibtana waa u gaashaan. ninkaan awoodi karinna ha soomo soonka shahwada ka jabinayee. dhagaystayaal intaa waxaa inooga eg gogoldhigga guurka oo aynu maanta qaybteena koobaad ee buugga guurka raaxada idinkaga soo qaadnay. buugga xuquuqdiisa waxay u sugnaatay Sabriye Macalin Muuse oo ah qoraaga buuggan waxaana tifaftiray Sheekh Mahadiiriye Axmed. buugga raaxada waa buuggii ugu horreeyay af Soomaali ee ka hadla raaxada guurka. waxa aad nala socon doontaan qaybta labaad insha Allah oo aan iyadana sidan oo kale idinku soo gudbinayno. waxaad nagala socotaan shabakada isha wararka.com.